dabkan yar ee fudud ee ka dhacay mid ka mid ah istuudiyaasha Radio Hargeysa gaar ahaan kuwa lagu duubo barnaamijyada ayaa ahaa mid fudud oo haba yaraatee wax khasaare aanay gaarsiisnayn waxaana isla markii la dareemay qiiqaasi gurmad degdeg ka galay wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo isaguna kormeer degdeg ku yimi qaar ka mid ah debdemiska dawladda hoose iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ahna kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay sida waxa u dhaceen waxa dhacay maanta dab yar oo ka kacay stuudiyaha Radio Hargeysa saacadu markay ahayd 9:00 barkii ilaahay baa mahad leh isla markiiba waa lagu guuleystay waxaan filanaa inuu ahaa shoor ka kacay wax khasaarana haba yaraatee kamuu dhicin qalabkii meesha yaalay iyo waxa laale wixii ajilada ahaa iyo kuraas haday tahay wax kasta u tahay oo stuudiyaha yaalayba iyo miisaaskii way ka badbaadeen dabkaasina wax daqiiqada ah ayuu qiiq uun baa kacay xataa olol kamuu dhicin si wanaagsan baa loogu soo gurmaday waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha kala duwan iyo injineerada wasaaradda warfaafinta waxa kaloo aan iyagana u mahad celinayaa dawladda hoose oo debdemiska noo soo dirtay ciidamada bilayska oo taliyaha madaxa howlgelintu oo inala joogo marka waxa iyaguna kulay madaxda gobolka barasaabka iyo barasaab ku-xigeenka iyaguna inala jooga runtii wax weyn ma yahayn ilaahay bay nagu guuleeyay hawshaasina way dhamaatay shaqadii wasaaraduna sideedii bay u socotaa haba yaraatay wax khasaare ah oo la sheego oo halkan aynu maanta ka sheegi karno inay ka dhaceenna ma jirto wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cali Maxamed Urnaacado oo isaguna ka hadlay dabkaasi yar ee fudud ee istuudiyaha Radio Hargeysa ka dhashay ayaa yiri saxuum waxa sixir ka daran baa la yiri waxaan maqalay maanta in short ka kacay istuudiyoga Radio Hargeysa runtii ilaahay baa xamdile shortkaas wuxuu noqday mid aan wax dhibaato ah ama wax dheemaje geysan qiiqii horeeyay markii la arkay ayaa shaqaalihii iyo madaxdii wasaaraddu oo u horeeyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddu ay wax ka qabteen iyadoo loo soo gurmaday waxa ilaahay mahadiyay in imika istuudiyogu sidiisii caadiga ahayd uu hadlayo oo wax dhibaatay aanay gaadhin waxaan runtii caddeynaa inaan wax khasaare ah oo soo gaari jirin sida dadka qaarkii wax u qoreen waana la arki karaa iyadoo imka lagu shaqeynayo istuudiyogu iyo wariyaashii ay ku jiraan oo sidiisii caadiga ahayd uu shaqeynayo geesta kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxa uu ka hadlay arrimaha diiwaangelinta gaar ahaan dadka caadaystay inay ku noolnoodaan waynu la soconaa wadanka waxa ka socda khaasan magaalada gobolka Hargeysa diiwaangelintii dhawaanna waxa loo bixi doonaa gobolada kale iyadoo dhammaan dadka laga diiwaangelin doono diiwaangelintaas waxay u socotaa si aad iyo aad u fiican waxa sidii dadkeena caadada ahaan jirtay waxa la arkay ama ay qalabka casriga ah ay qabteen dad damcay inay ku celceliyaan 50,000 oo qof markii ay diiwaangelintu maraysay inta la qabtay waxay noqotay 420 qof oo isku dayay inay laba goor isdiiwaangeliyaan dadka badankoodii way xidhan yihiin waxaanu horgeyn doonaa sharciga wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliland in ay isdiiwaangeliyaan oo diiwaangelinta u soo baxaan mudane Cali Maxamed Urnaacado waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsaha badan looga bilaabi doono diiwaangelinta gobolada kala duwan ee Soomaaliland agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in wax khasaare haba yaraatee aanay soo gaadhin istuudiyahaasi isla markaana uu yahay mid sidii loogu talagalay u shaqeynaya istuudiyaha Radio Hargeysa ee dabku ka dhashay oo aanu tagnay ayaa ahaa mid aanay khasaare gaarsiisnayn kaasoo u shaqeynaya sidii loogu talagalay